dadka sida aadka ah u qabatimay isticmaalka aaladda internetka ka oo ah mid ay ku kulmaan bulshada kuwa oo xog ururin laga qaaday ayaa muujisay inay dareemeen inay guuldareysteen noloshoodana ay dayaceen. Cilmi-baaristan ayaa tilmaantay in dadka baraha sida aadka ah u isticmaala ay aaminaan inay guuldareysteen marka loo eego kuwa ka fogaada waqti ku luminta Facebook iyo aaladaha kale ee internetka. Dadka ku nool Britain 30% ka mid ah waxay aaminsan yihiin in aanay gudan waajibaadkoodii nololeed, halka 56% baraha bulshada ku xiriirto ee internetka ay isticmaalaan sida daraasadda lagu sheegay. Cilmi-baarista ayaa lagu sheegay in ragga dhalinyarada ah ay yihiin kuwa ugu badan ee dareemay inay guuldareysteen marka loo eego haweenka. Mid ka mid ah 3 nin ee da'doodu ay u dhaxayso 25 ilaa 34 sano jir, kuwa oo rajaynaya in noloshooda iyo qofka ay yihiin ay baraha bulshada ku sharaxaan, kuwa oo inta badan ilaawa nolosha caadiga ah iyo inay horumar sameeyeen. Daraasadda ayaa ahayd mid ay samaysay shirkadda lagu magacaabo Future Foundation. Daraasaddan ayaa laga qaaday dad ay tiradoodu gaarayso 5,000 oo ruux oo reer England ah, iyagoo natiijadii ka soo baxday daraasaddan noqotay in dhalinyarada waqtiga noloshooda ay dib u ridaan, iyaguna ay aaminaan inay nolosha ku fashilmeen. Cilmi-baaristu waxay tilmaamaysaa in qaar badan oo ka mid ah dhalinyaradaasi ay ka walwalaan qaabka ay u egyihiin, halka kuwa kalena ay iska dhaadhiciyaan inay guuldareysteen oo aan faraxsanayn oo uu mashquul badan haysto. Dadka inta badan ku xiriira social media ama baraha bulshada waxay abuureen dhaqan ah inay isbarbar dhigaan inay guuldareysteen dib u dhac ay sameeyeen oo ay nolosha ka hareen. Sidaa waxaa yidhi William Seymour oo ka tirsan shirkadda Future Foundation oo cilmi-baaristan samaysay. Shirkadda waxay ka digtay dhibaatooyinka soo wajahay jiilasha waqtigan aaladaha internetka ay sii badanayaan, taa oo noloshoodana ku keeni karta dib u dhac saameeya inay ku dhex dhacaan qaladaad badan oo saameyn weyn ku reebi kara nafsadooda. Inta badan waxay arrintani si gaar ah u saameynaysaa sida lagu tilmaamay cilmi-baarista ubadka ku kora isticmaalka social media ama baraha bulshada marka loo eego dadka waaweyn ee xilligan isticmaala. Xog ururinta ayaa muujinaysa in 3 meel 2 ka mid ah 63% dadka da'doodu u dhaxayso 17 ilaa 33 sano jirka ay yihiin kuwa dareema dib u dhac nololeed, marka la barbar dhigo 7% oo da'doodu ay u dhaxayso 55 sano jir ilaa 78 jir, kuwa oo ku nool England.